adiga ma aaminsan tahay jacaylka kadib nolosha imaanayso bas waxaa aaminsan tahay guurka kadib nolosha imaanayso جعل كده بنلاش هنا إيمانيس. قف أنت تكون سمينا دارة القف وفي احترام معي وقف ما أنت هذا التاج هذا السوسارين أم صحيت ما نقطة أم جعلها نقطة وحربتها نقطة قف كاسيتي أو من نفتي ستعال كور مرينا دارة أكيد سنين فات وسو جيستا لما يلقف بلوي والله لكن قف بلو قصلي ولا هلا. لكن waxaad igu gambatay inaad tahay gabar dhanka jacaylka qabiirku ah isma dhihinin intaan eraya ah ay isku xiriirinaysaa Maariya laakiin caaw waxaan aragnaa inaad cashir la siinayso cashir oo ah inaan ilaalino qalbiyada noo dhow iyo eraydas macaan waan ka faa'iideysan annaga adiga waxaan kugu xamanaa inaad leedahay saaxiib adiga mar dhankiisa aad aaday mar adiga dhankaaga aad imaaday si qurux badan kuu soo dhaweeyay adigana si qurux badan aad u soo dhaweysay ma laga yaabaa haddii berito waxaan anaga u malaynayno aysan noqonin oo adiga noloshaada si gooni ah meel kale ugu soo baxdo ama qof kale uu ku guursado cilaaqaadkaas iyo wada socodkaas ma wuxuu ku ekaan doonaa oo keliya markii lagu guursado kadib ma sii socon doono wuu istaagi doonaa mise sida annaga aan niyaddeena ay tahay qofkaasaaba noloshaada dhabta ah oo adiga beritoba ah isleenahay qofka aan ku halayn karna Maariyo waa wiilkaas waan aragnay xoogaa hadalada barankiina waan aragnay walaa yorto su'aashan in badan waa ka dhuntay ayuu saas ay tahay haddana caaw waxaa rabaa inaad jawaabo kowdhe waxaan doono inay ku qanci doontiina fiican horta waxaa jirto nolosha waxay ka bilaabataa anaga sida aaminsanahay ama ani aan aaminsanahay maanta qof haddaad nolol samaynaysid waxay ka bilaabataa saaxiibtinimo taas aan nolosha ugu qurux badan aaminsanahay horta calaf waa meeshiisii calafku waa meeshiisa mar walbo maxaa la dhahaa wixii qoran ilaaha kowdhi midda kale aa dhahay waxay jirtaa haddii maanta nolosheeda ama qof kale soo baxo ama maxaa la dhahaa meel kale meesha nolosha ila aadayso ma ogi soo maha cilaaqaadka maanta ani wiilkaas igala dhexeeyo ma joogsanayo idinka siyaa maanta niyadiina ku jirto laba midaa niyadiina ku jirto taasoo ah inay run tahay iyo inay been tahay inay run tahay inay been tahay u deenaynaa waqtiga u deena adiga ma aaminsan tahay jacaylka kadib nolosha imaanayso bas waxaa aaminsan tahay guurka kadib nolosha imaanayso jacayl kadib nolosha inay imaanayso tusaalo ani adiga markaa isjeclaano waqti aan wada qaadano aan isbaranno taleefankayga aad haysadkaaga aan haayo oo si fiican aan isku dhexgalno dhinac walba aan iska barano inay nolosha dhabta ah imaan karta markaan isguursano kadib mise waxaad aaminsan tahay ani adigoo ba iska siin haddii aan isguursano nolosha dhabta inay imaan doonto macnaha jacaylka guurka ka dambeeyo mise jacaylka guurka ka horeeyo horta jacaylkiisa banaan mar walba wuu jiraa gowdhe inkastoo inta badan soomaalideena aan dhahno guur kadib oo nolosha dhabta ay imaadaa laakiin mid kalena way jirtaa guurka ka hor waxaa jiro jacayl waxaa jiro waxyaabo badan oo maxaa la dhahaa markaasiti inkastoo inta badan qofka markuu si dhab kuu jecelyaa dabeecadiisa runta oo ku tuso haddana waxaa jirto guur kadib dabeecada kaloo imaadaan dabcan maadaama qofkaaneti hal meel mawda joogtiin inta badan maxaa la dhahaa telefoonna kuwada xiriirtina laga yaaba haddaa is aragtiin xitaa dabeecadaha dhabta ah oo qofka gurigiisa ku joogo ma ahan miduu adigu ku tusaayo hadduu ku jecel yahan maba ku tusi karo ma fahamta dabeecadiisa dhabta soo guurka kadib nolosha dhabtaa imaado guur kadib jacaylka dhabtaa imaado guur kadib wax walba oo nolol ah ama jacayl ku saabsan oo reality ay imaadaan adiga waxaad leedahay dabeecad aanu ku arkin dumarka kale waad qurux badan tahay jirkaaga wuu fiican yahay waad yar tahay dabeecadna waad leedahay intaas dumar isku haysato aad bay u yar tahay waa mahadsan tahay koodhe waa iga xishoodsiisay horta waxaa aaminsana inaad dabeecad leeyahay inaad dadkii ku dhex jiri karo buu kasii fogaan kari koodhe taada kale nafsad ahaan maari ahaan waa is aaminsanahay number one horta aan waa is aaminsanahay been kuu sheegay bili-aada dhammaystirna ma jiro bili-aadanka wuxuu ugu baahdaa inay is dhammaystiraan
maanta hadda adi dhammaystiran tahay waxba maba raadin lahayn mogtahay maanta hadda adi wax walba isku samey wax walba isku qaban kartid haddii aa maanta noloshaada kaafisid wax baratid shaqaysatid weli oolaada u baahan tahay oolaadan adin isiin kartid waa inuu qof sabab oo noqda so bili-aadanka way isdhamaystiraan koodhe been maan anaga soomaalideena inta badan saaxiibtinimada xoogaa naguma weyno runtakii laga hadlo taasna waxaa u sabab ah dadka isku dhex jiro dadkii aa isku dhex jiro kuwa wanaagsan iyo kuwa aa wanaagsanin bili-aadanka hal maraa la bartaa waxaa arkay qof in badan aa ka carareysay qof in badan maxaa la dhahaye aad saaxiibtinimadiisa ha noqoto walaaltinimadiisa ha noqoto wax walba maanta dhankiisa aaba lagu karinbo wanaag walba ma fahantay laakiin maalin haddee qoranta aad dareemi doontid qof walba meesha inta caawa ku jiro waxaa uula talinaa haddii aa haysatid intaan shay aa soo wado qof kuu maanta haddaa haysatid haddaa kasii jeedi xitaa u soo jeesa xaalad walba u soo jeesa qof markay dadka dhankaa jeestaan dhibaato markay kugu yimaado dadka dhankaa jeestaan qof garab kuu noqdo qof maanta wax walba oo samaysid maxaa ku dhahaye qalad walba aa geshid cudurdaar kuu sameeyo qof maanta inta badan ma aaminayno qofaa naftiisa naf huri karo laakiin dareen ama calaamadooyin markaasayto qofkan aa dhigi karta ilaa naftaada ee ogolaato aa aragtidna qofkaasa ka fogaani so qof intaas kuu sameynaya dee aragtid qof uu ixtiraamaayo qof maanta hadalkaaga hadal soo saarayna ama saaxiibtima ha noqoto ama jecel ha noqoto waxay rabtaa noqoto qofkaasiti oo naftiisa taada ka hormarinaya dee aragtid laga jeesan infaat u soo jeesta lama helo qof kula ooyo wallahi laakiin qof kula qoslo waa la helaa laakiin waxaad iigu gambatay inaad tahay gabar dhanka jecelka qabiirku ah isma dhihinin intaan eraya ah ay isku xiriirinaysaa maaliye laakiin caawa waxaan aragnaa inaad cashir la siinaysa cashir oo ah inaan ilaalino qalbiyada noo dhow iyo eraydaas macaan waan ka faa'iidnay tan rikoodinkan wuu duuban yahay waadna ku arki doontaa tiktoka weliba asagoo leegiisa 100 oo sii dhaafay maadaama adiga aad hadashay maaliye okay tib aruush caawa naga badiyeen si kal ilaabay nooga badiyeen weliba dhulkan ula jiiday dhulka weligee iyo allahey may dhicin 7 geem qof iga badiyay weligeed iyo allaheed may dhicin 7 geem aa sheegaysaay 5 geem oo isku xigto weligee qof igama badin iskoorkaas adoo caawa kuu haya wuu kuu yaalaa 7 geem waa bakti jiidis caadiya ma fahanti si xun baa ii gasha caawa laakiin horaa waxaa loo yiri yeelaa waa ilaabaa laakiin la yeelaa ma ilaawo anugu waxa waaye tii aarsitaan ahayd laakiin caawa dhulka nagu jiideen waa naga badiseen si kal ilaaba noo naxariis baa la yidhaha saan camal noo naxariis baa iga badiseen dhulka adaa dhada waa kugu jiida annaga cirkaan kugu jiidaynaa ku dhan koraan kugu jiidna okay ani cirkaa igu jiideen mise dhulka igu jiide tiim aruush iga badiseen nuu kala wada goormaad diyaar tahay xilliga aad diyaar tahay ii sheeg intaas ka badan ma hadli kara sheekh aruush dhiiga baa igu karsan dhiigayga 97 mar dhiigayga aad buu u kacsiyan sheekh aruush dhiigayga caawa 7 geemaa liiga badiyay ma fahmaysaa dhiig way u kacsan yahay hani hal mar iigu juriyaa xisaab lee la wada maxaa ka xisaabinay 77,990 taleefankayga lambarka hormuud waay oo soomaaliya fiirani ani abbaa ilaahay ka cabsahani 77990 lambarkayga hormuud soomaaliya 7 jiran aan markiin kusoo tagahay lambarkayga hormuud waay aan kaaga badiyahani waxaa lagaa rabaa next time markaas funk side kama iga dheefto walaalow waa ii gaarti waa badisanin badiya taa funk side inta igala hirtid nuu kala wadniyo بس هل واحد مكان عود سكر أمريكا أنا ولا كان ميو أنا عادي ضد ولا منينو سوي اللي قال أباي بليز سوي اللي قال نو صور كل مقالة يسوق أنس كده جيب نو صور أي هبين دم أما هبين كحجة أما حلقة ديارته سوق لها يعني هبين دم ما هنا هبين كحجة أوكي بري محاضرة لأن هاي
هيا بينكم كحك ديار وهي يا أرسل إن شاء الله مو كلوت والله بالله ديك يا جعلها كوده لكن وحكاربا